السلام عليكم سو dhawaada daawadayaashana sharafta leh hadii aad kamid tahay dadka jecel sheekooyinka kala duwan oo adduunka daafiisa ka dhaca channelka ayaa ka heli doontaa si aysan ku dhaafin wax kasta oo cusub channelka subscribe dhagan balaalku furo like share tan ha ilaabin intaas waa cod sheekadeena maanta waxay ka dhacday wadanka Cumaan waxay ahaayeen hooyo iyo aabe isku faraxsan nolol qurux badan bashbash barwaaqo bariis caana leh muddo ka bacdi guurkoodii Ilaahay wuxuu iskugu xijiyo ku arsaaqay laba gabdhood waxa loo bixiyay Sumaya oo Saara noloshooda sidii u sii qurux badneed ka bacdi muddo dheer ka bacdi hadana Ilaahay wuxuu ku arsaaqay wiil waxaana loo bixiyay Xamad la koolkooliyo kabaha meel loo dhigo kursiga lagu maamulo almuhim caa'iladii waxay noqdeen family ka kooban 5 qofood hooyada aabahay way sheekaysteen nuux ka bacdi waxa qarar lagu gaar inuu gurigan ku yar yahay ay raadsadaan guri weyn oo ayakii ilmahooda deeqo gurigooda iska gadeen guri raadsiye galeen waxay heleen guri laba dabaq ah hore barxad weyn ku leh gadaal barxad weyn ku leh guriga rabeen heleen almuhim gurigooda ku soo guureen gurigooda deganaayeen noloshooda sida u sii qurux badneed maalmaha kamida ayaa hooyadii guriga waxa soo wacday walaasheed la dhalatay waxayna u sheegtay in gabdhaheeda gabar kamida la aroosi doono hadii Ilaahay laga soo doontay waxay ka codsatay عربها waxay qabaan hadii gabar ku aroosay iyo hadii wiil ku aroosa waxa jirta xaflad la yiraahdo oo guurka ka hor la sameeyo xafladda caailada yani xafladda family bas xafladda dhigtaan marka lama doontaan meel qarash badan ee waxaas ee lama aadan guriyaha ku dhigtaan marka waxay ku tiri abaayo maadaama gabadheeda heblaaya la aroosi rabo xafladda family waxaan rabaa inaan gurigaaga cusub ku dhiga maadaama aad guri weyn degan tahay oo soo degto markino dadka xaflada iskugu imaanay family-ga deeqo way ka aqbashay soo dhawaa walaashay minanka almuhim waxa la gaaray maalinkii xaflada la gaaray Saara iyo Sumaya hadda waa 13 jir iyo 14 jir ay kala noqdeen Saara waxay ku jirto qolkeeda wayna isdiyaarinaysa xaflada isku diyaarinaysay Saara ayadoo qolkeeda ku jirto isdiyaarinaysa ayaa waxa u soo gashay gabar ayada da'adeeda oo ordayso u maleysid miik qolka dalaq soo tiri ma soo gargaraacin ma ka codsanin Saara gabadha ma aqoonin qolka dalaq soo tiri marka Saara way xanaaqday carabaha waxay dabeecad u leeyihiin martida hatta ilmaha yararka way yaqaanaan martida waxay ku egyihiin meesha la fariisiyo bas meeshas ma soo dhaafaan qolalka ma galgalaan meelaha ma farfarayaan anaka dabcan isku ma caynayna laakiin anaka waa dabeecad in guriyaha dalqada u galno kan goormee soo gaday heblo goormee keenta oo inaan isdhahno laakiin ayaka waxaas male qofka ku casuuma meesha lagu fariisanee marka Saara way xanaaqday gabadhan iska soo gashay qolkeeda waxay ku tiri gabadhii labiskeygu ii dhamaaraba ani adi hoos u degi rabnaa adi hoos u degeynaayo ku tiri almuhim Saara iyo gabadhii markay irida qolkeeda ka baxeen gabadhii waa orday jaranjarta waa taqaan kor aado oo qolka guriyaha looga baxo dabaqyada ah jaranjartii ku orday haddana way soo orday hoos u degtay iyadoo ordayso marka Saara kama helin akhlaaqiyan gabadha kama aysan helin xarakaadkeeda hooyadeeda hoos taagna jaranjarta hoosteeda u tagto waxay tiri hooyo gabadhan akhlaaqiyan uma bogin qolkeyga iska soo gashay kor iska soo fuush hadana kor u orday hadana hoos u soo orday waa maxay akhlaaqdaas habartu wuxuu ku tiri maandadii adi bas kor ka soo degtay qofku lama soo degin gabartay ma soo waal rabtaa mayay tiri hooyo gabadha iga soo horeyso soo ordaysa ma arkin ay tiri gabartay ha waal maal cadee almuhim Saara gabadhii soo degatay waa lagu inkiray abarteed ma arkin ay tiri maadaama waqti xaflad ahayd sheekada meeshii ku ileeban Saara iyo hooyadeed laakiin Saara walwalahay sheekada ma aysan iloobin inay habarteed tiri gabar soo degatay ma arkin xoogaa waxay la ahayd cabsi xafladii dhamaatay habeenaa la gaaray Saara salaada cishaha tukatay sariirteeda seexatay almuhim waxar ka bacdi markay xoogaa sariirteeda saarantahay waxay dareentay culays dhabarka gadaale xoogaa markaad adigu jiifto qofka soo kor istaag waa dareemay xoogaa culayska markay soo fiirisay waxay aragtay wax dheer oo madow a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim ana cabsad hada wax dheer oo madow waxay aragtay sijaayada ku tukatay labada gacmood ku heesto oo sas u fiirinaayo aaday u naxday way sii jeesatay neefta isku celisay waxay bilowday ayad kursi laana hooyadeed saaka waxay tir anu gabar soo degata ma arkin gabadheedii shaydaanka iska naar haddana waxaan aragtay marka Saara waxay istir waxaan adaas sawiranayo bal qof hala sheer gareena bal sug waagu markuu bariyay hooyadeeda la sheer gareysay wixii habarteedii aabaheed waxay dhaheen gabartay shaydaanka iska naar balaaya ma jirto waxaan adaas sawiranayo gabadhii kale Saara la dhalatay Sumaya maalmaha kamid ayadana waxay maqashay naaga guriga ku sheekaysanay naaga sheekaysanay sheeka naagooda maqashay almuhim habartii la sheer gareysay haddana waxay maqleen labadooda socod qof guriga ku dhex socoto markay fiiriyaan qof guriga ma la joogto kor qof ma la saarna ay kor degan yihiin
waxbaa socda guriga dhexdiisa odagii iyo habartii way yaabayeen ayag wax ma maqlaan ilmaha bisa maqla ayag hoos ay degan yihiin ilmahan kor ay degan yihiin alma odag wuxuu qaraar ku gaaray aabahood inuu u soo gado kombiyuutar isku maaweeliyaan ilmaha si aysan waxan ay sheegayaan ay ka sawirnaan u maqlin odagu iyo habartu maba sadaqsan ilmaha inay wax maqlaan kombiyuutarkii la keenay maalmaha kamida ayagoo hooshooda oo u taho gabdhaha wixii ay maqlayaan lagu inkira maalin kasto sheedaanka iska naara la yiraahdo wiilkii oo Xamed aha qandhaha qabato qandha yar oo qafiif ah iska daamin waa caadi ilmaha inay qandha qabato hadana ka tagto wiilkii qandha laab lagu ogaayaa ku dhinto dhimasho qandhadii raad iyo dhimashaha cidii almi waadqan qofku wax ka dhintay tacsi ka bacdi duugow ka bacdi odagii habartii gabdhihii waxay dhahan adinka hoos imaado bal horta waan dhibteen wax la socda ku haysin anaga wax socda inaan maqalnay in kale odagii habartii kor u guureen wiilka geeridiisii iyo aday xoogaa iska rafaad ka bacdi odagii habartii isku dhaceen dhac faarax iyo xaliimana day isdagaalan waa taqaan safaaradaha la kala qaata xoogaa ma faantay marka safaaradaha la kala qaatay abaaheele qolkeeda ku hartay oo faaraxna hoos u soo degtay qolka nimanka fadhiga nimanka u jiifin jiray muddo ka bacdi sida la iskugu xanaaqsanaa sheekada gafur u ahayd duqdii hooyadii guriga oo meeyda asariirtii laga helay waa dhimatay Allah yarxamaha wala soo duugay bacda tacsi ka bacdi bacda oohin ka bacdi maalmaha kamid gabdhaha waxay maqleen gabdhihii hoos odaga ula soo degtay moogtahay waxay maqleen oohin baby guriga ka dhax ooynaa way korka ooynaayo odagii u sheegan odagu wuxuu raxma idin sheega kor dhan mamnuuc in ka tahay maalin baby ooy maalin qof socda maalin kor ka mamnuucay kor waa laga mamnuucay marka gabdhaha kor kama maarmino markasta alaaba iska saartaan ilaa hoos kuma filnaa markasta kor aadan adi waxay maqlaan odaga markuu gabdhaha kor ka mamnuucay gabadhii weynadu saare ahayd ayaa waxay istiri horta maanta geesiyada iska dhig noloshiina maasaan ku noolaanaysiin bal kor aad maanta wixii soo fiiri way baxday qolka habarteeda ka bilowday qolka habarteed markay gashay waxay aragtay ciid saas loo dhay sida ula la safay ama loo safay ayadoo ciid la yaaban oo ku mashquulsan albaabkii ku xirmaa abaa saaro albaabkii tartiib u xirmay albaabka aad iska fur markay isdheeysana gadaala looga wacay guriga gadaal wuxuu ku lahaa barxaddas qolka darashada hooyadeeda ku aadaneed fiir haday maagtay hooyadeed naag u eg oo cabaayad wadato gacanta u haatinaysa bye hoosaab laga salaamo saaro ama kaag faja cabsi carartay jaranjartay laba ooga degatay odaga imaade odaga marka u sheegto wuxuu yiri adinka kaale kormaamay ka cilcilinooya iyo waxba la maqlay furo la soo qaadee qolka hawarta dhaqab ku sii bal horta odaga furiisu iska haysan jiray maalmaha kamid wuxuu sir bal noloshan xooga habartiin waa hore dhimatay bal gurigaagi nin caadi iska dhigo gurigaagi iyo qolkaagi kor iyo meelaha u noqnoqo gabdhaha wuxuu yiri koran hagaajina laakiin adinka iska joogo asla jiifanayna markuu kor imaaday wuxuu u imaaday qolkiisii oo la hagaajiyay la toosiyay sariirta go'a laga bedelay bismillaahir rahmaanir rahiim odag xoogaa uu cabsaday hoos iskaga noqday qolkiisii uu qafushay hadan wuxuu sir waxaan daa ka cabsatay sida gabdhaha kugu dhaco markii ugu horeyso asagu arko wax guriga ka bedelan oo soo noqday qolkiisa jiiftay qolkiisa markuu jiiftay waxyar ka bacd waxa uu imaatay naagtiisii naag u eg cabsi sheedaanka iska naaraya naagtiisii naag u ega imaatay war maxaa ahayd ani naagtiidi mar hore dhimatay cambaro iga leexo almuhim waxay tiri aniga waxaan ahay naag jiniyad naagtaada ila balantay inaan ninkeeda u xafidoon la joogjoogay ugu la balantay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim المهم نيك وحور أقبل إن ناكتي كل بلنت أديكن إلى جوكت لكن مرب إنا مرنا كو أرك مرنا كو وحارب إنا توس كو أرك وفارح ديار أهبا بسم الله الرحمن الرحيم وابيا نيك هرر وبها مس هذا المهم وحكوتر بالشرط أنا إنا مركز ارتبلا وكذا لكن إيه بصداها حافظة شوجو وإنا سوليسيد حافظ كستوات بنان كذا ده أبحث مركز جوري أكسب بعد بالصد إيه وحلا أركي marka waxay tir kuwaas oo dhan xaafada ka soo marka soo leeysid aan toos ay arkay dabcan waxay uga jeedaa ayada taqaanay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim odagii gabdhiis waxba uma sheegin wuu baxay xaafadii wuxuu u galay iyo bisad laayo gabdhaha marka ay arkaan aabahooda bisad meyd iyo tuura war odayo kaala waxaan ka cabsanaynaa adaab isku badashay kaala malaha jinnigan ka cabsanaynaa adaab noqdo gabdhihii odagu ku dhigay waxay dhahan waxaan aad tuuraysid meydadka inaad sharaxdid maahan oday la kala bixima المهم وشيء وحور قبليه يو قصة سا قبصتي أدين كدب إن كجم إمامايو أنا كرن كومنانا ناكتي عصب وقبا
cambar luul iyo anoo isla boodboodayna adinkana meeshina deganaad cid idin imaanaysa male gabdhihii way waafaqeen awal badhibay qabeen iyo sawd maanta dhan yeera ma ogtahay way iska waafaqeen sidii ku wada noolaan islaanta jinniyada ahayd iyo ninkii gabdhaha dhalay iyo maxaa dhalay labadii gabdhood muddo ka bacdi waa la soo doontay gabdhihii waa la aroosay laakiin sheekada laguma sheegin jinniyada in aroos ka qayb gashay gabdhaha acuudu billahi min shaytaani rajiim المهم قبليه ولا أراسي قريه ذي كلا آذين مدك بعد أضاقي ودنتي مركو دنتي أبوت سواء آسين قريه ذي باع راديين لكن وحقته أو قريه قرورتي سماقر وعيال له والواي أبدا دتكو حكو أركان ما أقانو قصة ما مقلين موجي المهم قبليه مركو قريه لقى قاعد ديدي وحي قرار كو قارين إنه كدكتان حسوس قريه أبوهود إيهويدود سيدي سيكو دافين قريه سيدي لغو دافي sheekadiina halkaas ku dhamaatay see balantu eedade si ay ku dhaafin sheekadan sheekada ku xigto sheerta iyo subscribe-ka iyo gambaleelka iyo adduunyada dhan ayaa loo kala reebin waana mahadsantiin sida sharafta la noo dhageysateen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye